waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, wadaynimo waa halkeedee xiriirka adag ee bulshada Soomaaliyeed laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa. xigaalnimo waa ku abuurmaa, xididtinimona waa ku abuurmaa. xigaalku waa dadka xiriirka ka dhaxeeya uu dhiigga iyo dhalashada ku salaysan yahay oo xagga aabbaha ama hooyada isaga xiran. si gaara waxaa xigaal isugu ah inta abtirsiinada dhow wadaagta oo laba oday ama saddex markay kala tirsadaan midka afraad amaba kan shanaad isaga soo dhaca. waxaa lamid ah magacyada kale ah qaraabo, xigto, sokeeye iyo cashiiro oo isagu ah erey laga soo galay afka carabiga, soomaaliduna ay goor hore keeda ku soo darsatay. xididtinimaduse guurka kadib ayay abuurantaa. waa xidhiir ka dhex dhasha laba qoys mar alla markay isguursadaan inan iyo inan labadooda ku kala abtirsada. sidaasna waxaa ku abuurma xidhiir aan hore u jiri jirin oo lagu garto magacyo tilmaamaya maantaa kadib xubnaha labada reer ka soo kala jeedaa waxa ay isu noqonayaan. mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin. mar kale waa sodog oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu ninka guursaday u yahay. mar kale waa sodoh oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday. marna waa dumaashiyo waa hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday waxa ay isu yihiin. intaas oo kale ayay gabadha la guursadayna ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo. hooyadii waa u sodoh, aabbihii waa u sodog, walaalkiisu waa u dumaashi, walaashihiina sidoo kale. dhinaca kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidid dhow loo aqoonsanaa si aan magac gaar ah afka ku lahayn. waxaa ka mid ah inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo, adeero iyo ilmo adeero, abtiyaal iyo ilmo abti, eedooyin, habaryaro iyo carruurta ay dhaleen, iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku abtirsato jilba hoosaadka ay ka sii tahay. inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaabaa ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira 4 qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga socnaadaan. waxaan u jeedaa sodoga, sodohda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga. xididtinimadu waxay ahaan jirtay hiddo gaara oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan. waxay lahayd xeerar la ilaaliyo. kala xishoodka, kala gabashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa. ciddii dardartana looguma bogi jirine waa lagu ceebayn jiray. badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xirnaayeen kolba sida ay xididtinimadu ku bilaabato. waxaa jiray arrimo ka horrayn jiray xiriir wanaagsan oo raandiis leh, xididkuna uu yeesho. waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa. ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliili u oolin, gabadha oo aan lala bixin inta loo soo gogol fadhiistay reerkooda la weydiistay lagana bixiyey xoolo yarad ah oo aabbaheed iyo adeeradeed ay ku raalli noqdeen. waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo sodohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaganuglaada. intaasiba waxay ahaayeen xididtinimada arrimihii bili jiray, guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan. kor iyo ka hoosow dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara, kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lexjecladu ay ka mid tahay. siduu dhaqanku ahaana khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen. haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna waxay u qoordhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin. dabadeedna
si ay u gaaraan go'aamo garsoor hufan ku qotoma waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaanna waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaashe haddaan sidii daba riyaad loo faydin ma faydanto taasise waa xigaalka iyo xigtadee arrinta xididku iyadu sidaas way ka duwanay marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin hadday dhacdase waxay ka meelmeeli jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo wuxuun isqoonsi ah markii ay dhex maraan in lasoo dhex galo ma ay jeclaan jirin oo si hoose ayay khilaafkooda u turxaan bixin jireen waatay ku maahmaahi jireen gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa waxaa ka reebanaa is-eedaysi cod dheer leh waxaa ka reebanaa hadal taagtaagan iyo waxa la kala tabanayo in lasoo wada bandhigo markii la isa soo hor fadhiisto waxaa ka reebanaa gocashada badan inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanayaa inuu run ku hadlaayo haddana waxaa xididka ka reebanaa is-eedaysiga in lagu tarax tago qof walibana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo raad arooryo dib looma raaco mahmahdii ahayd intay isxusuusiyaan ayay ku dadaali jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan cid labada qoys ka baxsanina aanay tala ku yeelan waxay sidoo kale madaxa u ruxi jireen ujeeddada mahmahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin wax uma sheegaan sidaynu haddaba soo sheegnay xididtinimadu waxay ahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa kana duwan midka xigtada iyo xigaalka lagu yaqaan si aynu taas usii garannana waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay wuxuu xididku lahaa hab loo wada hadlo loo kala eed sheegto loo wada xaajoodo loona wada kaftamo dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa in toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo